برجر إيمانك الله كسوه ما حاجة لي رواها قلت وحيرها إله وداد إيمانك كسوين أنا غير إيمانك النجا قاضي محمد على أساس كل موانين من إيمان وعين يا الله أساس كل موانين مرة أما إيمانك إله نجا قاضي بحي أما إيمانك أي الله كسوع لي أساس كل موانين هذا اللي كان قد كان صومالي ومحاطر ذا إيمانك الله كسوع معاتري إيمانك الله كسوع إله إيمانك دار كسوع هنا أنا اللي يقدر يقول سيدنا كان لقدك ساعة فرق السبع سنة هذا يقول مع سين أنتي مرة بعد مرسد حاد بشرفي النوتة وأنا وحيارة كبرنا وصوبا بين دونا دولة من هنقات كذا يهور صعد كذا يكون دجيشة كذا وحيوبا هنتها الدبكة اللي جارسي بلكي وهو صعد دورشو مدة لحدا يدور سنة نوجود بيسي إلا سعليو وحيوبا هانتها المركة ميل مركة اللي قد تجاهي وميل هذا اللي جوه إن أتكيسي بدن سهم بانساميني سهم كي أندرني غير وصوشيجي وهو شيء إلا أولي كرو لصوبين كرو لهلي كرو dadka Soomaaliyeed inay madaxdooda iyo masiirkooda iyo dadka mas'uulka u noqonay ay doortaan dadaalka asaga ahaa saa la socotaan meel fiican buu marayaa magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhan badidooda waxa ka socda diiwaangelintii dadka sidaas oo kale magaalooyinka koonfur galbeed waxa ka socda diiwaangelintii dadkii shacabka ahaa waxaan rajaynaynaa ونسوينا هدو إلهي راهو دقموينك كله أو دمنا سيدا ugu dhaqsaha badan in loo keeno guddigii diiwaan gelinta dadka reer koonfur galbeedna is diiwaan geliyaan ay doortaan guddoomiyahoodii golahoodii deegaankii dadkii u qaban lahaa shaqada ay rabaan inay doortaan yaan soo dhaweynaynaa horumarkaas siyaasadeed wax lagu faano waaye waxaa la yidhaahaa bartiis aqoon mana hodmo mana deegaano dadka Soomaalida dhaqanka ah in meel un la deganaado oo baqdin laga qabo haddii la guuro ama dhibaato dhacda ah in laga baxaan rabnaa roonaaba rabaa waxaa laga yaabaa walwalkan iyo baqdintan tirada badan iyo waa la qaadayaa iyo waa la dhigayaa haddaan iska dhaafno oon isku kalsoonaano inaan meel fiican degno waxaa laga yaabaa oo weliba aan aaminsanahay in ay noo tahay dowladnimadanadi meesha ay si rasmi cagaha ugu dhagan lahayd shacab faraxsan oo madaxdooda soo doortay oo taariikh hore soo xasuustay oo culayskii iyo qabiilkii iyo mushkiladii ka yaran nastay xisbiye samaystay xisbiyadooda aaminay isku duuban durbaantooda tumanaayo madaxdooda qoranaayo sida loo kala badan yahay la isu dooranayo inaan gaarno waa hiigsiga Soomaaliya oo dastuurkana ku qoran oo meesha loo socdo ay tahay 2012 dastuurka la qoray in la dhameystiro inta kalena hore loo socdo waxaan rajaynayaa marka inaan si midnimo leh oo dadka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabkaba u midaysan inaan qadiyadaas aan uga dhabayno aana u istaagno waxaan saas u leeyahay anagu dee waa haddaan nahay reer koonfur galbeed waxaan u ololaynay muddo badan nidaamkii federaalka maalintii xornimada la qaatay oo dowladnimo Soomaaliya inay aado ahayd dadkii ku taliyay baan ahayn in dalkan uu federaal qaatay waxaana u arkaynay haddii nidaamkan federaalka la qaato dadka Soomaaliyeed inuu qof walbana xuquuqdiisa uu heli lahaa maamulkana la daadejin lahaa sida loo burburay hal maalinna aan loo burburin lahayn marka maadaama dad xukunkii
nidaamkii federaalka la diiday oo markii xornimada la qaatay xukunkii uu dad gacan u galay geeley ah oo sidii geeli u dhacaayoo kale ay xukunka u dhaceen oo sidii ay u guuri jireen ay u qaxaayeen ay xukunkii ola qaxeen uu gacanta u galay federaalkina la waayey khasaarahan waxaa la gaarsiiyey marka kiiwa marka waxaan aaminsanahay si nidaamkii federaalkii aan rabnay ay usoo noqoto geeleydan iyo dhacanna xukunkii looga soo dhigo in la yidhaaho dad baa wax dooranaya doorasho xor aha la qabanaya qof iyo cod baa la isku dooranayaa tiraa la rabaa deegaan baa la rabaa waxqabad baa la rabaa la isku doorto waa meesha keli xun aaminsana inay talada dib noogu soo noqonayso haddii cadaaladdaas la helo annagaana samayn karno oo soo celin karno meesha keliya oy taladii iyo xukunkii iyo nidaamkii aan raadinayna ay ku soo noqon karto ma aha teendhadii inta la tago lacagtii tirada badnayd la bixiyey dadkii la kala gato ma aha waxay ku soo noqon kartaa in dadkan reer koonfur galbeed oo tirada badan ay codeeyaan masiirkoodana doorto marka meesha aan ugu dhimanayno meeshaas wey marka meeshii ma daba taagnaan karne maalin walbaba maxay laba xaafadood inaan markhaati u ahaano oo aan kala reebno oo aan saan ugu mashquulsanno u kala celinayno afartii sana dhamaatay la yidhaah anaga shaqadaanadi dhan intaasay noqotay soomaalinimadina intaasay ku dhammaatay marka si aan uga gudubno waa inaan taladan ama dhammaatada ah oo labadan xaafadood ay iska nanasinayaan aan uga gudubno doorasho qof iyo coda shacabka soomaaliyeed wax dooranayaan la istijaabiyo weliba aan codsanayno inaan muruqa annagana soo bixino annagana nala tijaabiyo waxaan aaminsanahay geedi caano leh yaan dadka degeyn lahayn meel nabadan iyo barwaaqo iyo horumar lehna waa ku furi lahayn marka halgankay ka mid tahay gobolnidoonkay ka mid tahay dowladoonkay ka mid tahay isbeddelkay ka mid tahay aan u istaagno sidii aan ku heli lahayn xaquuqdaanada dowladeed oo ah inaan qayb weyn ka noqono doorashooyinkan socdo oo dadka ay madaxdooda dooranayaan madaxweynahooda ay ayaga dooranayaan xildhibaankooda ay ayaga dooranayaan madaxweynaha gobolkii ayaga ay dooranayaan guddoomiyihii degmada ayaga ay dooranayaan dad madax ah oo shacab soo doortay si loo helo markii intaas la helo waxaan aaminsanahay inaan heli doono xaquuqdii aan raadinaynay 65 sano inaan helaynaa aaminsanahay haddii intaas aan ka dabayno dadka hormuudka ahna aan u noqono marka waxaan mar koobaad iyo mar labaadba inkula dardaarmayaa meesha hadda loo socdo yaanan lagaa hoosaasinin waxaa laga yaabaa dadka diiwaangelinta socoto aad dadkaan loo diiwaangelin